Faa'iidooyinka daacadnimadu ay leedahay guurka iyo caafimaadka. Faa'iidooyinka badan oo laga filan kara ayaa ku jiraan inaad daacad isku noqotaan lamaanahaaga. Waa kuwaana sababaha ugu waaweyn ee kalsoonidu ay dadku muhiim ugu tahay. Daacadnimadu waxay dhistaa is-aaminaadda. Haddii aadan kalsooni ku qabin xiriirkaaga, waxba ma haysid. Marka adiga iyo xaaskaaga ama seygaaga aad daacad isku tihiin, midba midka kale uma baahnid in aad mar labaad fikirto. Miyaad dareentaa kalsooni iyo inaysan waxba jirin marka lamaanahaagu ku soo waco kuuna sheego inuu xafiiska ku soo daahayo ama shaqada uu ku soo daahi doono? Ka waran haddaad safar shaqo u raacdo qof kale ama qof kula shaqeeya, miyuu seygaaga ama xaaskaaga aamini lahayd in safarkaagu mid sharciyeysan uu yahay? Dhinaca kale, miyaad ku kalsoon tahay in qofkaagu daacad kuu ahaan doono inaad magaalada ka maqan tahay? Haddii jawaabaha su'aalahani ay yihiin kuwo aan caddeen oo shaki uu ku jiro, xiriirkiina dhibaatooyin ayuu u yeeli karaa ama u keeni karaa. Arrimaha aaminaadda ayaa burburin kara xiriirkaaga. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato in qofka aad qalbigaaga ku aamintay uu had iyo jeer daacad kuu ahaan doono. Sidoo kale, way ku caawinaysaa haddii aad kalsooni ku abuurto qofkaasi. Xiriirka daacadda ah ayaa labadiinaba idinka xureynayo shakiga badan, maseerka iyo malada joogtada ah. Sidee dareemi lahayd haddii adiga iyo lamaanahaada daacad uusan midka kale u ahayn? Culayska walwalka ee si joogtada ah u daboolaya raadadka ayaa noqon kara mid waxyeelo u geysta. Waxay u baahan tahay inaadan ku jirin doonin dareen jecel marka labadiinaba aad walaacsan tihiin. Ma og tahay in walbahaarka iyo fikirka uu saameyn weyn ku yeelan karo caafimaadkaaga jireed iyo maskaxeed? Maqal uu daabacay Macadka Qaranka ee Caafimaadka Maskaxda Mareykanka ayaa ka digaya in walbahaarka daba dheeraada uu horseedi karo dhibaatooyin wadnaha ama dhiig karka, sonkorowga, istaroogga iyo kansarada qaarkooda. Waxay sidoo kale gacan ka geysan karaa geerida lama filaanka ah. Dadka daacadda ahi sidoo kale waxay bartaan sida walaaca loola ilaaliyo lamaanahooda. Goorma ayay ahayd markii ugu dambeysay ee aad wada qaadataan waqti dheer si aad u nasataan? Sidoo kale, u tixgeli dugista iyo nolosha jaceylka caafimaadka leh inay yihiin hab hoos loogu dhigayo xeerarka walaaca. Daacadnimada waxay hagaajisaa caafimaadkaaga. Maadaama daacaddarida xiriirka ay waxyeelo u geysan karto caafimaadkaaga, waxay u taagan tahay sabab in daacadnimadu ay hagaajiso caafimaadka. Cilmi baaris ay daabaceen ururka cilmi nafsiga ayaa lagu ogaaday in dadka runta sheega ay arkeen koror caafimaad oo waaweyn. Waxaa yaraada walwalkooda, niyadjabkooda iyo xanuunada jireed. Dabcan, daacadnimadu kor uma qaadi doonto caafimaadkaaga haddii adiga iyo lamaanahaagu aydan isdaryeelin. Daacad ahaanshuhu sidoo kale waxaa ka mid ah ogaanshaha inaad u baahan tahay inaad ku dhaqanto qaab nololeed caafimaad leh. Cunto habboon, jimicsi iyo nadaafad ayaa gacan weyn ka geysan kara in adiga iyo lamaanahaaga aad ku noolaataan nolol caafimaad iyo farxad leh. Daacadnimadu waxay dhistaa kalsoonida. Aynu wajahno been sheegidda iyo qarinta sirta waxyeelada leh. Waxay yareeyaan kalsoonidaada. Lamaanahaaga ayaa laga yaabaa inuusan ku ogeyn, laakiin waxaad murugo ka dareemi doontaa gudaha markaadan haysan xasilooni gudaha ah. Waxay aakhirka ka muuqan doontaa bannaanka. Dadka daacadda ah badanaa waxay dareemaan kalsooni xooggan markii ay wax walba oo iyaga la soo gudboonaada aysan qarinin una sheegaan lamaanahoogu. Wuxuu kugu aaminay qalbigiisa ama qalbigeeda ayay kugu aamintay iyo noloshiisa ama nolosheeda. Adiguna waxaad kula kacday khiyaano, balka waran xanuunka ay leedahay arrintan oo laga yaabo inaad dareemayso isla markaana aad ka qowmayn doonto. Sidoo kale, isku kalsoonaanta iyo daacadnimada ayaa keenta in dadka kale ay kugu kalsoonaadaan oo ay ku aaminaan. Kalsoonida iyo daacadnimada waa wax mar walba loo baahan yahay, labada qofna
dhexdooda in ay ka jiraan ay tahay. haddii aadan ku kalsooneen saaxiibtaada ama adiga aan ku kalsooneen saaxiibkaaga ama sirtaada ama dhibaatooyinka kula soo gudboonaada ama qaladka kaa dhaco aadan la wadaagin oo aadan u sheegin oo caloosha aad ku haysato oo intaasi ay kugu aruuraan, yacni wax walba waa qarsanaysay wax walba waa qarinaysay. hal maalin ayuu ogaaday wixii aa qarinaysoo dhan. qofkaasi ma u sheegi kartid qalalaadkaasoo dhan, yacni hal mar ma u sheegi kartid. marka taas waxay dhalinaysaa inuu qofkaasi kaa niyadjabo, kalsoonidii oo kuu hayay wax walbana ay kaa nusqaamaan, halkaasna inaad ku kala tagtaan ayaa laga yaabaa. marka qalad walbo kaa dhaco oo aad aruursato waxay dhibaato u keentaa noloshaada iyo guurkaaga ayay dhibaato u keentaa. saygaaga haddii aad isla joogtaan oo isla nooshahaan oo qalad kaa dhaco waa inaad la wadaagtaa oo aad la sheergaraysaa oo aad dhahdaa qaladkaasaa dhacay ka waran, sidee u aragtaa waxaanay. waa inaad markaasi faaqidaysaan oo aad saygaaga kala hadashaa. wiilkana waa inuu xaaskiisa kala hadlaa isagana hadduu uu qalad ka dhaco dhaho qaladkaasaa iga dhacay, bal sidee wax yeelnaa. xal ayaa imaan doono oo labadiinaba aad ka gaari doontaan. laakiin haddii aad qarsato oo aad isdhahda ha u sheegin, qalad kale aa ku dhacda ha sheegin, mid kale aa ku dhacda ha sheegin, ay beri ogaato qofkaani ama gabadha ha ogaatay ama wiilka ha ogaaday, waxaa meeshaas ku burburi doona gurigii idin dhisnaa ayaa meeshaas ku burburi doona. marka dhibaatada ha yaraata ama ha weynaatay waa inaad la wadaagtaa xaaskaaga ama saygaaga. waa baraadarkiina Cabdifataax Yare oo idin leh mar walba kalsoonida waa midda kaliya ay dhisi karto guri laguna wada noolaan karo. waxaan idin leeyahay inaad ka faa'iidi doontaan maqalkan yar aan idin soo gaarsiiyey. waa baraadarkiina oo idinkaga taagayo nabadgelyo iyo nabaddiino iyo nolol kulanto kula dambe xiisa leh mid ka mid lamid ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.